maalinimadkii arbacada taariikhduna ku beegnay 10kii bishan sii dhamaanaysa ee September waxaa dharaar cad la toogtay yar siyaasi ah oo caan ah oo lagu magacaabay Charlie Kirk. isla markii la dilay kadib waxaa bilaamatay ugaarsiga ama soo qabashada ciidii dishay. waxaan muuqaalkan ku soo koobaynaa qofkii dilay cidda uu yahay, qaabkii uu dilay iyo sidii loo soo qabtay ee sii daawo muuqaalka. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. haddaynu taariikhdiisa shakhsiyadeed yara eegno, Charlie Kirk waxa uu ahaa siyaasi ka tirsan xisbiga garabka midig ee Mareykanka. waxa uu siyaasadda soo galay isagoo aad u yar. wuxuu isagoo 18 jir ah sameeyay urur hadafkiisu yahay inuu u ololeeyo mabaadi'da iyo afkaarta xisbiga imka talada haya ee midigta. wuxuu Charlie iyo ururkiisaasi ka mid ahaayeen dadkii sida weyn uga qayb qaatay ololihii doorasho ee dib loogu dooranayay Donald Trump. wuxuu caan ku ahaa aftahanimo iyo afmishaarnimo. wuxuu doodaha kala qayb gali jiray ardayda koolajada dhigata. waxaanu dad badan oo taageero ah ku lahaa baraha bulshada. dhanka family waxa uu adduunka kaga tagay xaas iyo 2 caruur ah. dilka toogashadiisu wuxuu ka dhacay college ku yaala gobolka Utah oo lagu magacaabo Utah Valley University. muuqaal moobil lagu duubay oo la helay dhacdada kadib ayaa laga arkayaa toogtaha oo soo saaran dabaq 430 feet ama 130 mitir u jira taandhada uu Charlie Kirk hoos fadhiyay. Charlie Kirk waxa uu dood kula jiray arday kamid ah college-ka oo su'aal weydiiyay. How many mass shooters there have been in America over the last 10 years? isla markuu sidaa uu jawaabay ee uu yiri mikrofoonka dhig waxa ku dhacday xabad. waxay Charlie Kirk xabadii kaga dhacday qoorta, waxaana isla markiiba loo cararay hospitaalka deegaanka. laakiin sida la xaqiijiyay isla markii gaariga la saarayba way ka baxday. muuqaal kamid ah muuqaaladii telefoonada lagaga duubay goobta ayaa laga arkay qof dhar madow xidhan oo markii xabadu dhacday kadib dul cararaya dabaq u dhawaa goobta. siday sheegeen sirdoonkuna qofku waxa uu ka degay xagga dambe ee dabaqa wuxuuna galay xaggan dambe. saacada kadib waxay FBI-du baahisay sawirada toogtaha iyo muuqaalo xaqiijinaya inuu ka degay xagga dambe ee dhismaha jaamacadda, kadibna uu galay xaafadahan oo ka dambeeya jaamacadda. isla markii baahiyeen sawiradiisa iyo muuqaalka caddaynta ah, waxay FBI-du shaacisay in qofkii garta shakhsigaas soona sheegay halkuu joogo inay siin doonaan $100,000. waxaa la bilaabay ugaarsiga dilaaga, waxaana goobtii la keenay ciidamo qalabaysan oo tiro badan. waxaa isla markiiba la qabtay 2 qof oo looga shakiyay inay dilka geysteen, laakiin markii caddaymo lagu waayay waa la sii daayay. saacado kooban kadib howlgalka waxay FBI-du sheegtay inay soo heleen qorigii dilaaga oo hoos yaala geed u dhawaa jaamacadda, laakiin wax raad oo kale ma helin. markii 24 saacadood ka soo wareegtay waqtigii dilku dhacay, cid loo xidhayna aanay jirin. waxay indhihii wada qabteen FBI-da, waxaanay ku sii kordhisay cadaadis. ninkii dhalinyarada ahaa ee sawiradiisa baraha bulshada lagu faafiyey ee lagu tuhunsanaa inuu dilka geystay waxaa soo caddaatay inuu yahay Taylor Robinson. Taylor Robinson waa nin dhalinyaro ah oo 22 sano jira. wuxuu ku dhashay kuna barbaaray magaalada Washington ee ku taala gobolka Utah. waa magaalo u jirtay qiyaastii 3 saacadood jaamacadda UVU ee uu dilku ka dhacay, waxaanu dhigan jiray isla jaamacaddaas. haddaba sidee baa la ogaaday inuu isagu dilka geystay? Taylor markuu xamili kari waayay cadaadiska arrintan iyo social media-ha, waxa uu shakhsi ka mid ah qoyskiisa u sheegay inuu isagu dilka geystay. shakhsigaas uu sheegay oo la aaminsan yahay inuu yahay aabihii waa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada. wuxuu qarin kari waayay arrintii, waxaanu arrintii u sii sheegay qof kale oo qoyska ka mid ahaa. qofkii baana ciidamada la soo hadlay oo soo sheegay. Taylor Robinson wuxuu maqribada Khamiistii 11kii September isku soo dhibay booliska magaalada George. waa magaalo 400 kilomitir u jirta jaamacadda UVU. intaa kadib FBI-du waxay baahisay cadeymo dheeraad ah oo ku saabsan kiiska. waxay heleen wadahadal abka Discord ku dhex maray Taylor iyo saaxiibkii isla markii dilka uu geystay kadib. waxaana fariimaha qoraalka ah ee isdhaafsadeen ku xusnaa siday warbaahinta CNN tabisay inuu Taylor doonayo inuu ka soo qaado meel uu qoriga kaga soo tagay, inuu qoriga kaga tagay keyn dhexdeed, inuu arko halkuu qorigu yaalo. cadeymaha inuu rasaasta uu isticmaalayay dusha kaga qoray qoraale isaga u gaara, iyo inuu qorigu yahay qori ka duwan qoryaha kale ee wax lagu toogto, iyo inuu isla markii uu toogtayba dharka iska bedelay. qabashadiisii kadib waxaa markiiba warbaahinta Fox News warka u sheegay Trump. Looking real good. They have the person that they wanted. intaa kadib barasaabka gobolka Utah ayaa isna subaxnimadkii Jimcaha la hadlay warbaahinta. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. Investigators interviewed a family member. sida uu gudoomiyay warbaahinta la wadaagay, qof ka mid ah qoyska Taylor ayaa FBI-da u sheegay inay Taylor sanadihii ugu dambeeyay siyaasaddu aad u saameysay. ka hor 10kii September waa dilkan uu geystay ka hore. habeen qoyska Taylor isugu yimaadeen casho, wuxuu Taylor sheegay inuu Charlie Kirk soo booqanayo dhawaan UVU. waxaanu familigu wada fadhiya ka dhex sheegay inaanu jeclayn aragtiyaha Charlie Kirk, isagoo ku sifeeyay qof nacayb ka buuxo oo xumaanta faafiya. Kirk was full of hate and spreading hate. Taylor Robinson rasaas kasta uu isticmaalayay waxa uu ku kor qoray kelmado kala duwan, waxaana ka mid ahaa hey fascist, catch iyo Bella Ciao. Bella Ciao waa hees uu Talyaanigu ku dagaalgali jiray dagaalkii labaad ee adduunka markii uu la dagaalamayay kaligii taliskii Hitler.
hey fascist catch oo macnaheedu tahay keligii isla qumanow iska qabo waa kelmado lagu dhawaaqo marka bamka la tuurayo ee la ciyaarayo video game-ka lagu magacaabo Helldivers. sidoo kale Inscriptions on a fired casing read, "Notices bulges, capital OWO, what's this question mark?" kelmadahaasi waa kelmadii isugu jira kaftan iyo dacaayad uu Taylor ula jeeday Charlie Kirk. rasaasta afraadna waxaa ku qornaa sida uu gudoomiyaha gobolku sheegay, "If you read this, you are gay, LMAO." dilkii Charlie Kirk wuxuu gilgilay internetka iyo social mediaha, wuxuu xasiloonay siyaasadeed iyo xaalad siyaasadeed oo kulul geliyay Mareykanka. waxaana ka bilaamatay isla markii uu dilku dhacay hadal uu jeediyay madaxweyne Trump oo uu ku cambaareeyay xisbiga dimuqraadigu inay mas'uul ka yihiin kana ahaayeen dilkan qorsheysan ee dhacay iyo kuwo kale oo badan. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. And it must stop right now. eedanka dhanka Taylor Robinson ee ah inuu dilka geystay wali maxkamad sharci kumay cadayn, laakiin wali waxa socotay dhageysiga kiiska waxna la rajeynayaa in dhawaan la xukumi doono. wixii faahfaahinana waan la soo socodsiin doonaa.